soo dhawaada soo dhawaada karti iyo ismaqal baa lagu kaalin galayo soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada هذا صح ما كاميرا السلام عليكم ورحمة الله ما يمغشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baan idin salaamayaa waxaa idin leeyahay aad baad horta umahadsantihiin dhammaantiinba mar walba garabkaad aniga ila joogteen mar walba farxaddaad iga farxinayseen mar walba ciziga iyo karaamada aad idinku i yeesheen iyo sumcadda aad isiiseen mar walba idinkoo igu dhiirigelinayay inaan dadkayga aan wax u qabto ama aan ku baraarujiyo dantoodu xaggii ay ku jirto horta wallaahi aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiinba aad baan wada mahadsantihiin waxaan idin leeyahay mar walba jiroo jooga mar walba waxaan idin leeyahay allah naga dhigo kuwii ismaqla ee iswaafaqa ee midooba mar walbana garab isa siiya marka la isku baahan yahay isku gurmada mar walba ilaahay ha naga yeelo kuwii walaalahood xasuusnaada aad baan idin salaamayaa soo dhawaadaan leeyahay soo dhawaadaan leeyahay farxad maanta qodobadan kolley ka hadleyna ay rabo inaan wada arkaysa soo ma aha soo wada dhawaada شارك اللجنة هو صويع شارك اللجنة شارك مرنا اللجنة
waayahay waka maanta saasaan leeyahay ii kaalay labadeenu kala maarmi mayne horta aad baan idin salaamayaa aad baan idin jeclahay arrinku maanta xaggaa soo marayaa horta waxaan ka bilaabayaa qodobka isaga ah maslax iyo arrinkii Jabuuti dhagihiinana aad u fura waxaan rabaa inaad dadka kale walaalahayna share aad dhahdaan aad gaarsiisaan horta intaan afaaraha gelin waxaa jirta anigu fanaan baan ahay fanaan Soomaaliyeed baan ahay kadibna fanaan dadkiisa u hadlay baan ahay oo beeshiisa u hadlay oo rabay dhibaatooyinka ay ku jiraan in ay ka macnihii ka dhiidhiyaan oo beeshaas oo ah beesha Ciise tooska loo wada yaqaano anuu wax u gabarin inuu wax qarnaynin haddaba maxay ku dhacday in la yiraahdo markaan dalkaygii hooyay dadkaygii aan u tagay in la yiraahdo waa fanaan qabiil ama waa qabyaalayste hadda mid baan idin sheegaya mid aan aad ka ula yaabay waxay tahay anigu fanaan baan ahay oo dawladda waan ka madax bannaanahay saad u ogsoontihiin siyaasad iyo dawlad iyo afaarahaas anigu kuma jiro oo waan ka madax bannaanahay kaliya waxaan ahay codkar nin dadkiisa u hadlaya oo ma ogtahay inay oo wixii ay raba inay helaan oo xaqoodii weliba taasoo ahayd in dawlad deegaankani ama Itoobiya aan ku noolahay markii ay dhibaatooyin ka jirtay si ay dadka uga dhiidhiyaan weliba dadka dulmi lagu hayay midaas qabyaalaysanimo ma aha waa qof dameer labay dhinacayga waa qaanay oo haduu marba dadkiisa iyo dhibkii iyaga dadkiisa ku dhacay haduu qabyaalaysan ku noqonayo oo baan hayban leh oo haddana maxaan ka cadeynayaa cidigu aysan kartana ma jirto ikhtiyaar baa leh mid labaad waxay tahay ta aan aad ka ula yaabay dad dawladda u shaqeeya waad ogtihiin horta dadkeena ama beesha aan ka soo jeedo waa dad nasab wallahi waa dad aad u wanaagsan oo ixtiraam kala yaqaana oo Soomaalinimadana ku weyn tahay oo dadka ciiseeya oo sharfa oo macnihii dadka kalena dhibaatooyin ama aflagaada aan u geysan waad og gabadh canfariyada oo u shaqeysa wasaaradahan saaran jecelahay Samara iyo dhulkaas ayay Jabuuti si aad iyo aad loogu soo dhaweeyay iyadoo matalaysay dadkayga oo canfar ahaan meesha soo fadhiisatay balse laakiin dadkeenii ama dadkan aan ka soo jeedo mayna ku degdegno may dhihin waa qabyaalaystayaal waa maxay waa hebel kaliya si sharaf leh iyo sumcad iyo karaamo leh ay ku dhayaan tahay ugu soo dhaweeyay aniga laftarkeyga igu daro aad baan ugu farxay bal ugu soo dhaweyn karaa sida hadda baan ogsoonahay haddana waxaa dhacday wiil beesha durriyada Isxaaq ka soo jeeda oo wasiir uu ka yahay ma aqaani laakiin Jabuuti wax ka ayaa beeshii ka soo jeeday martisorio ay u sameeyeen casho sharafeed ay ku soo dhaweeyeen isagoo waliba magacii beesha durriyada Isxaaq oo hadlaya ayaa loo geeyay Somaliland oo si fiican loogu soo dhaweeyay beeshu ka soo jeeday cidina ka bash cidina tirwa qabyaalist haddaba waxaan idin weydiiyay dibta haysata ee mar walba la igu leeyahay adigu qabyaalista tahay maxay tahay أنا محن سميه توان هسي شعب كيانو هسي كيانو هسي بيش أنا كسر شيء ده بان هسي دول ميجي ديدي من كل هسي هذا بابا محد ويستان المادر ريالو حد مشغول صار ليه كان والله هذا والله يا بلا يو ما قرني عقل جاي مرا سكين الله آخر كوجا وفت شيء الله آخر كوجا سيا حيقو استعمل وصلوا واكاس ما حد يكاستا ما حد يدبر سعطانا ما حد يدبر دقتين هذا ريلو حنيدي انت هذيك مشغول إنسان
waxaan ku yiri ka baxa sheekada oo inaad ayar bariiskiina soo cuno oo afaaraha bilaadanki inaad soo gashaan ma haboono tiinaba lama soo galo cidna ma dane cid xataa ilaahay abuurtay oo afaariina ka hadlaya ma jirto lama arag laakiin afaaraha iyaga walaaleel ka baxa dee markaa waxaan idin sheegayaa ninka arabin inuu ciise midoobo ama ninka arabin inuu ciise isku yimaado ama ninka arabin inuu ciise tashado isaga u taala waxba qaadi meeynaysan inagoo indhiino shan ayay midoobi doonaan waa insha Allah waqtiga ugu weyn waayo laakiin waxaan idin dhihi lahaa danihiina idinkoo raacan lahaa ayaa ka wanaagsanaan lahaa intaad bilaadanka ku mashquulaysan midda kale waxa weeye ilma adeerayaal horta wallahi xaqiiqada markaan idin kala hadlo afaaraha Djibouti aniga idin dhaxay noo dhaxaya waa siyaabo badan baan noo qaldamay laakiin maalintii hore waxaan ka yaabay in sheegay dadkeena post baan soo dhigay postiga waxaan soo yiri wixii waxaan soo gali doonaa live hadii la xasuusto qofkii soo gaadhay xasuusanay waxaan soo qoray insha Allah waxaan soo galayaa live waxaan ka hadli doonaa wixii jiray Djibouti iyo dhibkii la geystay iyo dhibkii jiray baan ka hadlay balse laakiin dadkeena waxaan ka yaabay mar walba hadallada la soo qoro ama hadalka la yiraahdo xumaan bay u qaataan waxay u qaataan xumaan horta inay ku wada ogeedeen madeerayaal Djibouti inuu magacayo ka soo baxay ku qarxay si karaamo loo boqortooy ilaa uu dhex joogay si farxad leh uu dhex joogay si aan aan caadi ahayn inay dad u gubteen si aan caadi ahayn inay dad caloosho xanuuntay si aan caadi ahayn xataa inaan uga soo waalay wada weedin yaanade marka waxaan idin dhiilaa iska dhaafa waxa ku mashquulina aniga Djibouti wax dhibatay ma soo gaarin xataa hadii iga soo gaari lahayn ma sheegay madeerayaal xataa hadii iga soo gaari lahayn hadda waxba igama soo gaarin xataa hadii iga soo gaari lahayn anagu sokeeyaha maadaama wada jecelahay anigu ku baani lahaa waxba deeq kama qarnayo annagu ilaahay xeer iyo dhaqan iyo asluub iyo anshax iyo idaab bina siiyay oo dadka kale kaga sareeyna oo dadka kale kaga qiimo badan nahay afaaraheena ama wixii xitaa inaga dhaxeeya ama aniga ama ani ahaatay ama dadka kale ahaatay wixiina waxa loo xaliyaa si ragatinimo leh ay ku dheehan tahay waa ninka ay cabsi ku jirin ama daneynaya waxa uu rabo hadii ay runka tahay baano iyo waxa la isku soo fadhiistaa wadogtii annagu isma ceebino walaaleynu isma cambaarayaan ismana mucaaradaan oo isku banaan moogta hadii xitaa waxaan ka hadlayaa iga soo gaari lahayd sida raggan u dhameeysan lahaa sida raggan oo ugu jawaabi lahaa sida raggan oo ugu baani lahaa waxba dhib male laakiin si dadkan raba inay abuuraan colaad sokeeye danooga ku qarsanaya ku gabanaya waxaan oran lahaa inaadeer ciise uu midaysan yahay afaraha iyaga faraha kala baxa anagaas ku filan ilaahay ka soo anagaas ku filan annagaana reerka ka dhalanay oo u dhalanay waanu isku insha Allah waanu isku soo duceynaynaa intaas xagga kaga baxayal madeerayaal كل ما كان يراهدي أنت قربها شوكتنا ونص صعدة قارب بس كوك بندي قررنا ما يصوته يا والله إذا حتى إذا قربها صعدة وكل تدخل قربها أنت جايو مسؤولي رجلني أيوه وصوم دينا أيوه هول بنحكي قبنا أيوه ضدك marka hadii aan xitaa ilaado Yurub baan tagay dadkii ma tagaya dad unba dad amri la soo gubanayo iskaga caloolayaalo waa tagay walahay ama gubtana ma Ahmed way baadana ama hada dhacaa ku dhig insha Allah aad waan idin soo socdaa inta qurbaha joogta haday maqlayso waan idin imanayaa mar dhow xitaa hawlay way dhamaadeen in yar bay dhiman inaan idinka idin imaado anigana aad baan ugu faraxsanahay inaan tiinay imaado waayo dad waxa tiin
soo jeeda oo hadda dadka iyaga dhibaatoonaya garab badan siiyey waliba si gaar ah ayaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa ilaahay anaga jaaysiyo insha Allah ilaahay dadkooga inta in ka badan dad u taraya ha idinka dhigo ilaahay ha idinka dhigo dadkooga fiici doona insha Allah kullay ninka waxaysta ninka walaalkiisa baahan wax uu dhibaa waan wadin soo ducaynaa insha Allah inaad inta qabateena ilaahay in ka badan dad qabta ay naga dhigo waxaan soo noqonaynaa afaari kale xaggan dawlad deegaanka Soomaalida iyo gobolka inta dhirta waxa hawlaha ka jira horta hawlaha wallahi gobolku alxamdulillah si fiican buu socdaa laakiin arrin waxaan jiray habeen anigoo xanaaqsan oo caroonaya aan ku soo suray baraha bulshada oo de intii fahmi xaggan mar raba inaan kaga cadeeyo waxa lagu soo diray ahayd qoralka messenger-ka codka soo dhigay codkii aan soo dhigay wuxuu soo gaaray kulay dad kooban ay ku jiraan xaggan codkii aan soo diray raggeeni macnaheedu lagu soo weeraray meeshii aan idin sheegay ama magaaladii reer intii la socota waxa rabaa wax faahsan inay dadka gaarsiiyaan dadkeeni waxaan idin idhi horta raggeenu maanta way u baahan yihiin way idin baahan yihiin horta wallahi de anaga saddex bay naga dhaxaysa waa iga dhow eedeh iyo eedib marka kullay sidaan hore wada hadalnay mar raba de baraha bulshada inaan wax soo dhigo ay dadkii maanka xumaa ee aqliga gaabna inay si kala wax u fasiraan oo de ay raahin fahmayso soo laakiin ragga tamartooda inaad soo celisaan ayaa la idinka baahan yahay dadkayga raggiina tamartoodii inaad soo celisaan ayaa la idinka baahan yahay tamar la'aan baa ragga lagu weeraray oo lagu waxyeelay annagoo qoslayna waan idin sheegay annagoo walwalkiina laga dareemeyn cabashana laga dareemeyn oo ballan qaadnay maanta laga bilaabo cabasho dhinaceena annagana laga soo caban mooyee inaan annagu cabanno waanu ka dhaaranay hawshana waa wadnaa idinkuna garab weyn baad ina siiseen ilaahay aniga jaasiyo laakiin tamarta reerkiina soo xoojiya aadayaal tamarta raggiina tamartaas inaad soo celisaan waajib bay nagu tahay inaad tamarta reerkiina soo celisaan shankaroon ina cilmi USA na waa nimanayaa de kullay kama hadayo haddana xaggaa mar soo gaadho waan idin soo siyaarinayo siyaartul khafiif aan soo siina dhib male waan niima doonaa marka sheekadayda xageen waday tamarta raggiina waa in la soo ceshaa wallaahi baan ku dhaartay way idin baahan yihiin maanta walaal baa garanta waxaa la yidhi inuu walaal macaan yahay nin madiya baa garan annaguna waan idin jecelnahay walaalihiin baa tihiin baahideena iyo cabashadeena iminka laga bilaabo waan ka waantoobnay inaan baraha bulshada soo dhigno maadaama aan idinka si fiican aan xiriir u yeelanay oon maanta isgarab taagnaan karno maanta laga bilaaba waan idin baahannahay garab baan idinka sugaynaa tamarta raggiina la soo cesho qodobina waa ka qodobka ugu dambeeyay waxa weeye xaalada dirrabe horta wallahi cabashadii ugu dambeysay annagana laga soo cabtay maadeerayaalow anu waxba ma qariyo intii hore waan cabinaynay dee nin ragan baa la yidhi baraadhi dumarkan baa baraadhowga ka sheekeeya raggu jabkooga ka sheekeeyaan dee markii horena raggu tamar bay ahayd waxay ay nagu gaadayeen laakiin hadda inta tamartii ay soo noqotay annagana laga soo cabtay xamniga ma qarnayo waan bay keeneen laakiin waantaasi dee lama wada qaadanayo haddii aan wada qaadano na iswada dhiibno waxay noqonaysaa waan la fahmaya markaa arrinka iyo hawsha waan baahinaynaa waan ballaarinaynaa waad fahmaysaa maan u maleeyey waan ballaarinaynaa waxaan xaggan aan ka salaamayaa waxaan xaggan aan aad iyo aad aan uga salaamayaa aan uga mahadnaqayaa qurba joogta iyada ee inaga dhashay anoon kala qaadqaadin
oon ku tilmaamayn meelaha ay joogaan laga yaabo haddaan qaar ka tago inaan calxumay qaadayaan maadaama dee inaadeer aan afrikada yareed iska joogo oo weliba meesha yareeda darnayda iska fadhiyo laga yaaba magacda dhulkaas inaan wada xafidino mid baan ka tegayo markaas way xanaaqaya maogtiin marka ma raba anoo guud ahaanba ka hadlaya waxaan rabaa inaan idin idhaahdo waad mahadsantihiin maadeerayaal waad mahadsantihiin niyadaad inoo soo celiseen dhabarnimadaad inoo soo celiseen midnimadaad inoo soo celiseen idinka midnimadaad muujiseen wallaahi bilaahi idinka ayaan lagu dayanayaa midnimadu meel walba ka bilaabmatay midnimadu xalkiina hadday soo gaadho oo si fiican idinka u soo gaadhay ood istooyateen ood isxasuusateen ood mar walba aad tiraahdeen ood mar walba tiraahdeen maanta waan iskiin garab taagaynaa haddaba wada hawshiin allah idinku daryeelo allah idin ciseeyo allah idin sharfo wada hawshiina waana nii soo socdaa ha waa soo socdaa laakiin de markaan idinku yimaado inaadeer faransiiskuna xaguu ahaa armatiiba ha taana waan imanayaa inaadeer kolley de meelay ku taalla garan maaye aada waan imanayaa waan iman doonaa insha allah yahay waan imanayaa waan kusoo qabanayaa naciima waan kusoo qabanay sug edo yar sug وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حسن خابس أنا هذا عرض جرا فنان سوماليات حد قباشة واقع السلام هذا ما يفي عن هذا معنا حالتي جور ردي جور سين أمن أفريقيا بدور أمن أفريقيا أدنى خو سلام هذا معنا bulshada live-ka ku jirta aad baan wada salaamaya maslax inaadeer aad baan ku salaamaya jamhuuriyadda Djibouti inaadeerow aad bay kugu darsatay waxa weeyaan mar labaad iyo mar saddexaad aad baa lagugu baahaya maslax inaadeer waan ku salaamaya dirdhaba waan salaamaya walaalahayga qurbo joogta waan salaamaya aad baan inii wada salaamaya waka inaadeer igu wada salaam oo reerihii igu wada salaam waxaa ku tirahdaa waan idin xiisay weliba wadooyinkan aynu mari jiray moogta iyo meelo yaraa ka jiray dadka dhan ba igu wada salaam maslax horta anagu xaqiiqada haddii aan ka hadalno Djibouti wax weyn baad ka qabatay maslax kowdhay arrinka aad Djibouti ka qabatay waxa weeyaan waxaad muujisay walaalnimo iyo midayn waxa weeyaan dadka walaalaha jamhuuriyadda Djibouti jooga adigoo ixtiraamaya tixgelinaya dadka jamhuuriyadda Djibouti ku nool guud ahaana waxaan ku leeyahay inaad reer Djibouti aad bay kugu mahad celinayaan aad bay kugu mahad celinayaan wayna ku wada salaamayaan maslaxow aad bay kugu mahad celinayaan aad baan ku salaameynaa xastraabeeso waxa ka tiraahdaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa soo socdaa ku dhig marxaba inaadeer in nolow in xunba ka baxnaadeer aad baan ku salaameynaa naadeer macal aad baan ku salaamayaa waka maanta waa dadku waa iska wada farxad waxa khadira kulli adiga masarna waan kuugu imanayaa kulli de masar waa afrika insha allah waan isku dhownahay kulli haddaan tareen kusoo raaciyo haddaan bas kusoo raaco waan ku iman doonaa insha allah min madeereel wallahi aad baan idinku mahad celinayaa caawa saan u faraxsanahay milayn maysiin waayo waxaana dareemay midnimo ah in ay maanta dadkeena is xasuusteen taasoo weliba meesha aan dhex joogno ay tahay xaalad aad iyo aad runtii iskaga xun laakiinse maanta aan kaga bixi karayno midnimo inkastoo aan kaga bixi karayno maanta midnimo iyo wadajir maadaama loo baahan yahay wallahi taasna maanta waxa aad iga farxiyay maanta xagan soo fadhiisiyay waan anigoo qoslaya soo fadhiisiyay waa idinka wallahi runtii waxaan idin leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba allah idinka jazaasiyo insha allah allaha idinka dhigo ummad dadkooga wax u tara ummad dadkooga waxaa kaloon xaggan aad ugu mahadnaqayaa walaalkay cawaale aadan
dahaye oo isagana kaalin weyn ka qaatay iyo weliba aamina afriik ayaan aad u salaamayaa oo aad u jecelahay hadday arkayso aamina afriik cidda aad نعمة توصل. السلام عليكم. وعليكم السلام من هذا. اسكورن إن هذا يرتعد ماين إدو اسكورن. إدو إدو يا رسالته. ويفي عنها إدو معنا. حد أدبن. أدبن من الصبح. ملابلة. محاضرة. كم مغرد محاضرة. ما مقلة سيدو. سفاري أرجي. تكوي. كم مغلى يد سيفا ما كم مغلى أدب كم مغلى يد معن إد قرحي إد نعمة توصني وردهبي عدهبي إد معن إد يرعى كده يو عاد ماشي كمان البيسوق المية لا عينيش نجيها هرت إد وانكو سلامة يعني أدبك يا كم دعي ما دركتي ولا حال مريض إن شاء الله وعلينا وصحاني نون نقطة تمام كينبا cadowgu iska badan yahay laakiin lama qaado lama sheego waxaan waan u dhaxnay wayna dhaleen ina cacaynana maaha waa laga qurux badan yahay laakiin kiina soo ataaga yaa waan iska celin ninkoodu lix buu dilaa 20 haday yihiin hanahaaban midnimo tolkay malab waan jecelahay geesiyaal baa naga dhashay geesiyaal ay waxaan la aamusanahay wax kala ma laakiin dad sharaf laba nahay intay live soo galaan ma aytano idna ma aytano wali na lagu maayo anaga ceeb cid macaan laakiin soo doonto waxaan tolkay malabla u sheegayaana 212 qof ayayna daawanaya inankiinaana mijukuleena madu mijukuleena winigeena هذا عيد مسكة برا في الشدة هذا لا يفضل والله لا فيك عر والله بالله هذا أنا كوتشوغا ميجا كولاي كندا أنا كاغس هذا كول أفريقيا وحكتري وعيه أنا قبل ما أنت بس دي أعطيك والله وقتك يا باشا يقرأ هذا يقحش سيريس waxaan salaamay salaamada ila socota salaamu calaykum waa tan jakulay salaamay ka qaaday naadir macaan seetay oo fiican alxamdulillah naadir salaamay xaaladda soo wanaagsanid iyo gabanimo waligaaba anaguna ku garabtaa marxaba aamin naadir marxaba inta yarna tolkay waxaad u qaadataan kaliya kabsan yar iyo xamaasad yar noo dhaxeeya waxaa ka soo qadan life yellow ara media para life attain soo yaaymin waxay ahayd in yaro madadaala oo maxay tolka haddaba waxa weeji aad ban idin salaamaya aad baan idin salaamaya aad baan idin jecelahay hawshan waa sida aan idinku dhigay waxaan leeyahay waan idin soo socdaa insha Allah dadka dhexdeedana bilaabaya hawsheedii dirrabe ilaa iyo dhoonar ilaa garbaciise ilaa cadeyti ilaa afdam ilaa baki ilaa gobolka city oo dhan waan ku soo wareegayaa kulli insha Allah hal bil ilaa 2 bilood iga qaadan bacdin idinka waan hayaan magarayaal aad baan idin salaamay midnimada iyo hawsha dadkiina iyo wax qabadka waa wax loo baahan yahay waa qudus waa macnaheedu waa sunnah inaad dadkaaga wax u qabato dad haysto aad qofkaaga baahan midda kale intaan ka bixin meesha horta ninba wuxuu qabtay lama qariyo xaggan waxaan aad uga salaamayaa Colonel Maxamed Jaamac oo Djibouti jooga oo si ragaadnimo uga soo baxay kaalintii aniga ahaan uu meesha igu geeyay ilaa iyo aan kasoo dhankaday caso jooga buurta caaray
kaalintaydii iyo xusuusintaydii midnimada ciisanimo kaalin weyn oo buuxda igu siiyey wuxuu qabsan lama qariyo ilaahay baana siiyey intaana aad baan kugu mahadcelinayaa wixii kale inta dhaafsan waxaan idin leeyahay idinka insha Allah aad baan idin jecelahay in noolaada wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh